mahadnaq oo dhan ilaahay baa iska leh ilaahay inoo suurtageliyay inuu halkan isugu nimaadno oo sharafta iyo karaamada isugu nimaadno oo maalgashi aynu ka sheekeyno ayaa horta mahadda iska leh haddaan programka aan intaan ku leeyahay u soo daadego anagu shirkad ahaan shirkadda Najah Construction iyada ayaa hotelkan dhistay hadday tahay dhisankiisa hadday tahay 2D-ga iyo 3D-ga structure-ka electricity-ga iyo biyaha dhamaantood marka la isku daro waxa samaysay fulisayna shirkadda Najah Construction waxaan u maleynayaa hotelkii ugu qurux badnaa imika xilliyadan dambe ee laga dhiso Soomaaliland inuu yahay marka la eego structure-ka iyo finishing-ka iyo sida loo qaybqaybiyay waxaan jecelahay inaa gudihiisa u daawasho tagtaan oo ruumamka eegtaan oo suuliyada eegtaan suuligiisa la seexan karayaa qolkiisa iska daayo waxa wada yaalana waa latest waa wixii ugu dambeeyay haddaan intaa dhaafo waxa aan u mahadnaqayaa mulkiilaha hotelka Mustafa ma aha investor kaliya Mustafa waa aqoon-yahan waxa jecel xitaa aqoontiisa waa in Oxford ka baxay inuu dadka uga faa'iideeyo oo aanu roodhi kaliya iyo baasta ka sheekay taa u dheedro waa wax meesha ku jira maalgelinta uu sameeyay ee uu waliba Hargeysa oo ku dhashay ku sameeyayna aad buu ugu mahadsan qurba joogtana waxa leenahay sida Mustafa si dalka soo maalgeliya oo ilaahay bay tiisatay hoteelo badan ma aha hadii la iska wada daba keeno dadkeenu indhaha ka baacmishtirayaan gaabkii warshadaha maqan warshadaha galiya import ba iyo wax la soo dejiya nafta inaga jaree naabkiin ka yar been la soo degaynaa iyo tishiyuga marka qurba joogta waxa leenahay qabyaalad kaliya kama banaanay gaab fara badan baa banaan dalka ka banaan nin baa dhoofaya
deetana dal xadaarad lagu tagayaa xaq xadaaradii ka soo import karayn lahaa ee uu ka soo dhoofin lahaa ayuu buu baashiyo laba jibaaran oo qabyaalada uu soo dhoofinay waxa aad u muhiim ah qofku inuu soo dhoofiyo dadkan oo arkay waxaan ay ku kala socdaan iyo waxay qabsadeen sida Mustafa oo kale oo inay Mustafa ku daydaan waa very important marka waxa ku soo gabagabeynaya dalkana hala maal gashado hala la ilaashado oo dalka hala ilaashado dhamaantii waadiin mahadnaqaya cid u baahan inay wax dhisatana kelmadda waa ku sii tuuraya najix Soomara salaamu alaykum warahmatullaahi ta'ala wabarakaatuh anu waxa ka socdaa shirkadda Ruxan oo ah shirkad hadda 2 sano dalka ka jirta oo shaqooyin badan dalka ka qabatay shirkaddan runtii waxay qabataa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin guud ahaan qalabka la dhigo bathroomska haddaan idhaahdo suuliyada iyo meelashadooda oo casriya oo runtii hoteelkan uu ka mid yahay hoteelada aanu qalabaynay marka hore waxaan nahay group isku xidhan oo 3 company waa Ruxan Infinitive iyo City Furniture oo saddexduba aan kala maarmayn oo isku xidhan shakhsi kasta oo u baahan dalka inuu ka sameeyo waqtigan xaadirka la joogo hotel casriya oo sida hotelkan maanta aynu joogno annaga diyaar u ah inaanu qalabayno markay shirkaduhu inoo dhisaan shirkaduhu dhismaha marka ay sameeyaan waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waa asaasiga inta ugu hooseeya hadday tahay waxa la dhex dhigaya qalabka iyo hadday tahay qalabka kale ee casriga ee dhex yaala shirkaddani waxay qabataa waxyaabo badan waxaa ka mid ah plumbing and extensionka tile and flooringka plastic painting and decoration fitting kitchen and bathroomski runtii hoteelo badan oo hoteelkan uu ka mid yahay waanu qalabaynay sida hoteelkan Alxayad hadda aan joogno aan horeba u sheegay hotel Ambassador oo isagana aanu dib qurxin ugu sameynay oo ka mid ah hoteeladii ugu horeeyay ee aanu qalabayn ballaaran dalka ku sameeyno runtii qalabkan aanu keenaa waa qalabkii casriga ahaa ee awal hore dalka dibadiisa loo doonan jiray ee la dhigayay suuliyada oo hadda aynu kaga maarmayno runtii waxaan idinku soo dhaweynaynaa shakhsi kasta oo u baahan hadda inuu furto hotel casriya ama gurigiisaba inuu qalabaysto inaanu idiin hayno qalabkii loo baahnaa ee shalay dalka dibadiisa loo doonanayay oo biyahana inoo yareynaya oo tayadeeduna fiican tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa mulkiilaha hotelkan Mustafa oo inoo suurtageliya maanta inaynu halkan isugu nimaadno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان runtii marti sharafta meeqaam kasto ay leeyihiin waxaan ku salaameynaa salaanta islaamka ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda muslimiinta u jideeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddaan runtii intaa salaanta ku dhaafo ugu horeyn annaga oo City Furniture ama kambanigii runtii qalabeeyay xagga furniture-ka hoteelka waxaan mahad koowaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala bacdigii aynu runtii uga mahad celinaynaa walaalkeen Mustafa Cabdilaahi Aadan oo runtii ku dhiiraday ama gartay wixii dabadda laga keeni lahaa markii uu runtii warsaday inaanu halkan ku kafeyn karno aad iyo aad baan runtii ugu mahadsan yahay investmentkii iyo maalgelintii uu waday inuu dhammaanteed u isticmaalay wax maxalli ah hoteelku runtii ma aha kii ugu horeeyay ama kii ugu dambeeyay ee casri aanu qalabayno kulay tirooyinka waxaan malaynayaa dhowr iyo 50 buu liistada kaga jira kuwa ugu tunka weyn ee magaalada ka mid ah Ambassador baa runtii ku jira furniture-ka aanu qalabaynay waana runtii arki kartaan waxyaabaha casriga ah ee aanu ku soo kordhinay lagaga maarmo wixii Turki iyo China iyo Almaaniya ee loo dhan jiray waxa labaad oo runtii aan aad ugu mahad celinayaa walaalkeen Maxamed Axmed Warsame oo runtii ahaa maskaxda ka dambeysay habka iyo architecture iyo nidaamka uu runtii furniture ku noqonayo doorashadiisa iyo tirada uu yeelanayo iyo space walba waxa la dhigayo oo runtii maalin iyo habeen toona aan ka fadhiisanin
inay quruxda uu hudheelkaasi leeyahay runtii uu soo saaro isagana runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxa kale runtii aan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa dadka matasharafka ah iyaguna ka soo qayb galay oo leenahay bal soo arka waxaanu idin sheegaynaa inay wax reality yihiin iyo wax fiction runtii inay yihiin bal iyadana soo eega hal soo eega hudheelka insha Allah ta'ala kulli intaasaan ku ururin lahaa waxaan aad iyo aad mahad u celinayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo dadka runtii matasharafka ah ee iyaguna ka soo qayb galay walaalkeen Mustafa runtii aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa in Ilaahay u barakeeyo hudheelka waayo de maalgelinta inta leega uu sameeyay duca ayuu runtii inaga mudan yahay Ilaahay waxaan leenahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo maalka aad gelisay waxa aad ka olinaysay iyo wax ka badan Allah ka soo celiyo intaasaan ku ururlaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hudheelkan inooga dhisay magaalada aniga oo Muuse Cali Faruura waraabuhu dadka ku quno oo biyo bay haajirtay halka hudheelka uu ka dhisayo ina maxamadi شاهد يقول احنا اللي احنا قدري انك لما هذا شاهد يقول احنا اللي احنا قدري وحرويبت باري غرانا عاد كسر وحي خضر هذا روح الكان سيو حال هيا ما تعرف حد كان يسعد يرفع دانا ولا غيا ما خضر هذا وحلو دال ما كان سيا نو ان الرياضه يا كنت قلت كنتي بارد دبارو من سوا كابد كسميي هذا ما صار سودال ما نسيابوري هذا هدي حقها كتب ذي حمد يونس وحبها لقواي خلك إذا قال هي درنا شو بختي يا كنت هذا عطلا كنت هذا رئيسه خضر ويديه خضر نار نو على ذي قبل دوره خلك حوارها تعذريا تعرف تدي سوي ذي أنا خلك وحيلا أنا ما خلك إذا كان ما تهونا كان رادسي يا ترى منها هذا رابواري ترى دعاء عيانو ودرينا وحنو لاري قرب كيدو الله قرو الله يدين بركيو هلقا كسوا سارتينا وخيرنا اللي يدين قريو دالكينا سلع وقصي وضع وحكراتنا برواقنا المعطى يرعيون حيثنو يدالكينا أيام تي مرتبات يقبوا قوانا يادو وحلاي هاي برواقنا العاسين هو بربريانا ليلي أنا مدينة أنا كنت دلالو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مسؤولين حزبية قرنكا قدوميها بانكا قدوميها حزبية حلوانا لبدا قوله علي خليف جودهاني مدح رقميتك مرتشرف تبع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما محله إنه سورة كليه إنه أمني عافماد إيمان بهاي سنة إنه مناسبة نسوون نمد أو تصالح وقبع عقالة يتدارك يتطور كبرشية الدولة به أي نقص عنه runtii markaynu hoteelada iyo industry-ga hoteelada laga hadlayo waa waxa ka qayb qaata kobaca dhaqaalaha halka laga qiyaaso waxay soo jiitaan investorska iyo dalxiisayaashaba kuwaas oo markaa sabab u noqda inay infrastructureskuna ay kordhaan marka Mustafa iyo intii hawsha ku dhiirigelisay waynu ugu ducaynaynaa waxaan leenahay Ilaahay ha ka yeelo hudheelkii waara tadawur iyo wanaag ku sii kordha muxuu ahaayay aad iyo aad baynu ugu ducaynaynaa runtii Mustafa waxaan leenahay hudheelada maamulkoodu waa hawl aad iyo aad u ballaaran waa hawl u baahan joogto iyo dadaal joogta marka caqabadaha iyo wixii ku soo wajahaa ayay noqon kuwa ku niyad jabiya laakiin ha ku noqdaan kuwa 10 aad ka barato shaqaalahaaguna ha noqdaan kuwa aad la saaxiibto oo aad dhiirigeliso tusaale u noqoto si iyaguna dadka kugu xidhmaya hoteelka aad u furtay ay adeeg fiican u siiyaan runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka aad samaysay iyo tacabka adigoo dhalinyaro aad samaysay dhalinyarta oo dhan oo tusaale aad u tahay marka waxa laga sugayaa investment intan ka sii ballaaran fikir intan ka sii badan saad qarankaaga ugu soo dhiiratay inaad u sii xoojiso waan soo gabagabaynayaa guud ahaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadweynaha ka soo qayb galay madashan aad u qurxoon iyo hoteelka furitaankiisa waxaan leeyahay waad mahadsantihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaa kaloo aan hambalyeenayaa oo hambalyo aad u badan aan siinayaa mulkiilaha hoteelka Mustafa oo aan leeyahay maalka aad ku maalgelisay dalkaagii iyo ciidaadii hooyo aad baad ugu mahadsantahay Allah ku barakeeyo
ubadka iyo adduunka iyo garashada wanaagsan ee aad ku maalgashatay dhulkaaga ilaahay caafimaad iyo cisna ha ku siiyo maalkana allah kuu barakeeyo dadweynahana waxa aan leeyahay runtii oo ku boorinayaa ninkaa dhallinyarada ah ee maalgashada dhulkiisa runtii quruxdaa u quuray aad arkaysaan ducana u raaciya kasamarka iyo macmiilkana la ogaada biilka iyo amahdana ka ilaaliya xafladana aan loogu dadaalo intaa markaa dhaafo waxaan si gaara u salaamayaa cali khaliif galayd iyo ismaaciil buubaa oo aan leeyahay iyagana nasiibkiina idinku simaye idinkuna ku daashadaashooda badhaadhaha laydiin sameeyey waxaa kaloo aan aada u salaamayaa marti sharafta waxaan leeyahay gurigu wuxuu ku qurux badnaaba marka horeba madaxtooyo laakiin intaa u dhaafi maayo maanto hadalkii soo gaadhay baa wuxuu ahaa boqorka haddii loo dhiibo waxbuu ku tarsanaya ka daaya waa salaamantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wax wanaagsan baad qabatay waxaan halkan ka salaamaya madaxda qaranka ee halkan fadhida ugu horeeya cali khaliif galayd ismaaciil buuba faysal oo gudoomiyaha xusbiga ucid ismaaciil diya bukuuloo yahay cabdiraxmaan cabdilaahi gudoomiyaha bangiga xildhibaan bukaari rag fara badan baa fadhiya madaxda kalena waxaan leeyahay guddigiina assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadalkaan isku dareeya haddaan u dhaafo kan u kacay waxa weeye munaasabadan aynu isugu nimid iyo quruxda ay leedahay iyo waxa loo sameeyey idinkaa horta hudheelka laigii sameeyey inteenan fadhiday inta kalea maqanba waajibaadka innagayna saarno waxa weeye quruxdaa laynoo sameeyey inaynu inaguna wixii aynu ku darsanayno ah hadday afkaar tahay iyo hadday tahay kastamarska siinigii horena u sheegay waa inagu waajib mustafana mid baan leeyahay aada ugu sheegayaayo wax wanaagsan waa la sameeya laakiinse hadduu sii socdona macanuu yeeshaa oo standardka aad ku bilowdo hadduu iska bedeli waayo macanay leedahay wax badanoo oo la sameeyo wanaagsan baa jira laakiinse haddana dhexda marka dambe ka waxaysma waxaan haddii ilaahayba ka baryaynaa inaad kor uga sii socoto inaad wanaajiso annagana waxaa nagu waajiba waxyaabaha fara badan ee aanu garanayne wax hoos loogu sheegay wax kor loogu sheegay labadiba waa laguu sheegay weliba mid baan sii horaysiinayaa restaurantka marka laga sheekaynayo intan inagu soo biirtay ugu dhaqana intii hore inagu lahaan jirayna aan ku darsanno wixii hore inagu lahaan jiray hidaynoo ahaa oo aan weliba iyo la casriyo dee garowgeena haddaynu iska dhexgal iska dhigno laftiisu macanu samaynaya markaa waxaan leeyahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay inta kale maqan ee dibadda joogtana waxaan leeyahay kudayda raggaawa idinka soo horeeyey iyo waxay qabteen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام محمد بارجاك ومادسي هاي وكاميرا جناستة دالكا iyo komishanka amba guddiga ganacsatada dalka ورحمة الله وبركاته الحمد لله إلهي رحمه الله جل جلاله إنه قرادة إن كسر قيب الله أولاد كي قواني جيجي مصطفى عبد الله آدم علمي وأن ولا النهاية أبلو مهلقيا إنه مانتا إنه سميه وده كابروح بدن أو إنه أمرت أساسيا عاصمتنا هرجيسا وحلو مهلقيا مركوان إلهي كم مركع كرسيو مدحدا حزبية قرنكا أوبيد يا وطني وحكلو كنتي عن سلام يا لما كان فديا شرفت بدن يجونا علي قليل يو بوبابا ولبدوا سياسيين سومالي سومالي لانبا كدح موضوع لا يقانو marka ganacsiga la eego Somaliland runtii meel fiican baan maraynaa maalin walba waxba inoo kordhaya laakiin waxaad moodaa ganacsigu inuu ka hormaray dowladnimadeennii ama qarannimadii oo qarannimadii ay ka dambaysaad moodaa runtii horumarkii ganacsigu uu sameeyey markay halkan heesta laga qaadayay qarannimada Somaliland waynu isu taagnaa gacantana waxaynu saarnaa wadnaha laakiin qarannimadu kuma dhisanto hees la qaado kuma dhisanto emotion qarannimadu waa wax adag oo u baahan in la dhiso
oo loo adkaysto oo la yabyabo haddii aynaan taa yeelana dhismaheeda weliga gaari mayno tii hore waynu ogeen 60kii way naga baabaday tamaanta aan haynaana way ruxmaysaa waxaa loo baahan yahay siyaasiyiintu inay gartaan dalkan wixii loo soo maray iyo halkii laga soo bilaabay iyo baabaa ummadan ku dhacay wixii ay dhisayeen 100 sano waxaan ilaahay uga baryaa Mustafa inuu dalka u barakeeyo waxaan ilaahay Soomaaliland uga baryaa inay si niyada oo qalbiga ay dhab uga noqoto asaaska waxa la abuurayo oo qarannimo curdina oo dibadani haysto oo adag oo la toltolayo oo u baahan dhamaanteen bayna ka qayb qaadano aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bacd ugu horeyn waxaan u mahadnaqaynaa marti sharafta guud ahaan gaar ahaan wakiilaha Mustafa Hudheelka maanta xafladiisa aynu isugu nimo furayno ugu ducaynayno sidoo kale waxaynu aad iyo aad ugu hambalyeynaa maanta madasha wanaagsan ee bilana uu ka soo shaqeeyay sida aynu la dhacsanahay odayaashu iyo dhalinyaraduba ay cabireen waxaan isagana mahadnaqaynaa ragga salaamayo kamid ah gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi iyo gudoomiyaha xisbiga ucid Faysal Ali Waraabe ama Faysal Ali Xuseen iyo gudoomiyaha banka sidoo kale waxaan leeyahay kale sidii la sheegay odayaasha xogcadaaga sida ragii hore sheegay ka dhex muuqda siyaasadda Soomaaliya iyo Somaliland buuba iyo Ali Khaliif kale odayaal soo jireena oo mahadnaqayno macallimiin iyo rag aqoonyahana taalkaas aan ku dhaafay waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada kale aan leenahay oo kamid yahay Cabdullaahi Geeljire oo isla rugcadaaw iyo rag soo jireenka haddana xisbiga wadani aad uga dhex muuqda kulmiyana la ahaan jiray waqti dheer xildhibaan waabe oo isaguna xildhibaanada baarlamaanka aad baan u salaamayaa saaxiibka nahay waxaan kaloo salaamayaa dhammaanba saaxiibada iyo dhalinyarada iyo waxgaradka waxaan aad u soo dhaweynayaa hadalkii ugu weynaa ee halkan uu ka sheegay ahaa qurba joog dalka waxa inay maalgashiga ugu weyn geliyaan maanta ee yaalla in laga cawdaa waa qabyaaladda markii halka laga hadlayay la yiri qabyaalad kaliya la keeni maayo lahaa najax gudoomiyaheedu Cabdiraxmaan aad iyo aad baan sacabka ugu tuman waxaan leeyahay qurba jooga waxa uu weyn maanta dalka jira waa waxgashiga iyo maalgashiga iyo horumarinta dhinaca tacliinta dhinaca dhismaha dhinaca nolosha dhinaca ganacsiga dhinaca soo dejinta dhinaca warshadaha laakiin waxaad moodaa wixiiba waxay naga qaatay qabyaalad waxa qabay qabyaaladda laga tanaasulo farahana laga qaado maanta wax soo saarka loo soo jeesto ayaa aniga ay muuqata anigu qurbaha waa joogi jiray waqti dheer ingiriiska galaanti waxa weeye dadku markay halka joogaan dalkooda si fiican bay u soo arkaan laakiin halka markay yimaadaan muuqaal kale u yeesha marka waxaan leeyahay inaad basataan oo timaadaan dalka oo daraasaysaan waxa yaala iyo waxa ka banaan iyo fursooyin ka banaan taana dhalinyarada ku dhiirigelinaya Mustafa waa ugu hambalyeynaya horseed weyn buuya taa marka aan ku dhaafo waxaan leeyahay hudheeladu waa muraayadaha dalka laga daawado siba wuxuu aad iyo aad nasiib ugu leeyahay hudheelka kani wuxuu daris leeyahay airportka waxaan filayaa inuu customer heli doono standardkiisuna aanu istagi doonin dhinaca restaurantka iyo dhinaca kaleba waxaan iyaga ku soo leeyahay madaxda qabyaaladii aan ka hadlayay madaxda ummadda hogaamisay hadday yihiin madax dhaqameedka siyaasiyiinta culimada ganacsatada hogaamiyaasha kale marka hadba siday u fikiraan ay u hadlaan ee dareenka u cabiraan ee loo dhageysto ayaa dadkuna u hadlaayo suuciyaado ka daba hadlaayo ka daba sheekeeya ayagana waxaan ugu baaqayaa nin waliba waqtiga siyaasaddu taalo waa siyaasad waqti kalena dhiirigelin iyo isku duubnida dalka inay xoogga saaraan ee aanay kaga hadlin meel walba ku marfuranoo lagaga hadlin arrimaha siyaasadeed goobaha meherka goobaha dhaxalka goobaha haddii aan leedinkeeda leeyahay hudheelada la furayo goobaha la isugu yimaado qalinjabinta ha laga daayo dhalinyarta isdhexgelinteeda iyo sheekooyinka kale ha la wado wixii siyaasad ku saabsanna meesheeda ha laga sugo nin walba wixii alla u qorana wuu helayaa waana ugu hambalyeynaa ragga han kale nin walba ha ahaado asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu furitaanka hoteelka hadilmiya maxaa xayaat hargeysa
loo qabtay waa xaflad gaar ah inta halkan fadhiyay waxaan u fiirsanayay taariikhda ku qoran halkan oo 12 ah waa 43 ama 43 waa witr waxa weeyaan raqam aan wax kala u qaybsamin waxay ila tahay inay duca u tahay haddii muxuu ahaa hoteelka macno weyn kolka mulkiila iyo shaqaalaha labadaba horta taa waan xusuusin lahaa kolabaadka hoteeladan iyo dhaqaalahan haddii maxaa kobcaya waa haddii sidii horeba loo sheegay waxay ku yimaadeen waa nabaddana haddii adkeynteedu waa muhiim iyadoo sidaas tahay nabaddu ma sii socoto haddii aan runta wax walba laga sheegin hadday noqoto in lagu gabbado waxyaalo haddii muxuu ahaa kaa haddii muxuu ahaa qariyo xaqiiqadda oo haddii muxuu ahaa aan dhaqaalaha siyaasadda bulshada cid walba kolka la soo qaadayo haddii xaqiiqadda laga sheegin hore looma socdo hoteeladu waa qayb ka mid ah dhaqaalaha qaybihiisa badan ee kala duwan waa adeeguna wuxuu sida horeba u sheegay wuxun buu yimaadaa waxa dad u adeegtaa way dadku degan yihiin haddaanay deganayn adeeg ma jiro laakiin se adeeggaa maanta socda adeegyo kale oo fara badan ayuu u baahan yahay in iyaguna lahana inay kolkood dhismayaan ay la dhismaan sida isgaadhsiinta oo si wanaagsan u socota sida wadooyinka laakiinse waxaasoo dhan maxaa asaas u ah xagga dhaqaalaha tamarta maanta waynu ogsoonahay adeega iyo waxyaalaha badan ay doonayaynu qabanay dhaqaalaheenna haddii aan tamar jaban la helin amaba energy hagaagsan oo kugu filan haddii hore uma socon karo kolkaa dhinaca adeega tamarta in haddii muxuu ahaa la lacageliyo la eego in haddii muxuu ahaa wax lala qabto ani waxay la tahay taasna macaash culus baa ku jira maalgashayaashu yaanay u qaadanin tamartu inay tahay wax aan waxba ka soo bixin waa wax walba ka soo baxaa wax walba ka soo baxaa waa tamarta kolkaas dhinacaasna ha la geliyo lacag gelin haddii maalgelin ha lagu sameeyo laakiin se ragga maanta tan oo kale haddii keenay unbaa arrimaha kalena keeni doona insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybka xafladan dee inaan reer Hargeysa noqday waxaa ka markhaati kacaya inaan hoteelada furitaankoodiina ka soo qayb galo oo layga filayaba inaan ka khudbeeyo markaa xaafadana ay ugu horeysay kuwa kalena insha Allah xaafadaha kalena markay furaan iyana baltaa tixgeliyeen waa ugu hambalyeynaya Mustafa ninka dhalinyarada qurba joogta ee hoteelkan dhisay iyo shirkadahan kale ee dhismaha iyo furniture-ka iyo hawlaha inaku finishing-ka aynan hawlba u aqoonin oo kulli intaan hadda ka arko iyo cajabiyeyba intii ka qayb gashayba waa mar la gaadhay intoodabana waa ku hambalyeynaya hawshana inay halkaa ka sii wadaan waxaana uun jeclahay kulli qolyaha dibadda jooga maanta warkii waxbayna kuma seegana doorashada London iyo UK ka socota yaa halkan Hargeysa la iska weydiinaya qolyaha halkaa joogana hoteelkan caalamiga ee la furay waxaan maleynayaa warkooda inay ku diirsan doonaan kagana dayan doonaan Mustafa aad iyo aad baad mahadsantihiin nabadeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول المرسلين سيدنا محمد
اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في النبيين وصل على محمد في ملئ الأعلى إلى يوم الدين. waxaan halkan idinku salaamaya salaamta islaamka dhammaan madaxda marwooyinka dhalinyarada aqoonyahanka kulligiin baa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan gaar u salaamayaa guddoomiyaha xisbiga wicid, guddoomiyaha xisbiga wadani, guddoomiyaha baanka jamhuuriyadda somalilan oo halkan wax wanaagsan u qabtay laga sheegayay, isagana waxaan leeyahay hambalyo guusha wadana la ku gaarsiiyo sida ay ka sheegeen. هذه الشيء ضدك كان عصتها ده اللي صعد الصرفية ضيو هالك أصحاب تمر يسيو ضدك عصا هذه الشيء اللي صعد مركا واتيار كان نيجي كان عصا ذاك الشيء جاي وحنا هالك كسر الله ولا قبته وحنا هالك كسلامة يا دمان هو هاي كان عصتها وحنا هالك كسلامة يا حلي بعنا ذكرك دمانتو وحنا هالك كسلامة يا دمان وحي مدح الدولة ده هالك كتشوجا أيام كسلامة يا halkan waxaan ka salaamayaa marwada ajnabiga halkan la joogta ayaan gaar u salaamayaa soo dhawaad aan filayaa in kulli wixii Soomaaliland batayada lafteeda waxaan gaar u salaamayaa xogayaha guud ee xisbiga wadani halkan jooga ayaan salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa si gaar u salaamayaa madaxda dhaqameedda sida boqorraad halkan u joogo iyo madaxda kale dhaqameedda salaadiinta uqaasha dhammaantood waan salaamayaa waxaan gaar u salaamayaa habka aynu Somaliland ka dhisan tahay oo ah dumarkeena waa kuwan ku tirsanahay runta marka doonaysan hadaan jirin Somaliland ma jirteen quruxda raggu halkan la yimaadeen hadaan dumarku ka dambeyn gaar baan salaamay waxaan ka salaamay wixii culimaatiin halkan ka shooga iyana kii dhalinyarada quruxda badnaa ee aayadda quraanka wanaagsan halkan inooga akhriyay gaar baan salaamay haddii inta halkan laga soo gudbo aad iyo aad waxaan salaamayaa rugcadaynta siyaasiyiinta علي فقلي كراي بروفيسور كصاحبكي يا مهدي بوبا halkan ka soo jeeda waxaan halkan gaar uga salaamayaa anu sultaan baan salaadin tarkaleena ka xanaaqnay saaxiibkay inuu baarjay waa sultaan baan anu isagu gaar baan salaamaya saaxiib baan salaadin tarkaleena ku naas haddaan inta ka gudbo waan ka salaamayaa xubnaha guurtida ka jooga inanka dhalinyarada oo saaxiib aabihi ahayn walaalo saaxiibna ahayn weligayo oo hargeysaan isku hayna aad baan gaar u salaamaya waxaan halkan ka salaamayaa oo hambalyeynaya Mustafa mulkiilaha hotelkan quruxda badan leh ee dhalinyarada markii hore waxaan salaato ma dhowriyo 30 jir baan meelaasaan laayo gudoomiyaha cid baan la xamanayo wala ndariyo ma sha Allah way waxaan oo kale quruxda oo kale markaas diiniga waxa la doonayaa tana ma sha Allah haddana markii weelkii yiri hebel waxaan ahay saaxiib 30 sano ayaan dib gudoomiyaha cid wala xataa waxaan تبقى over 50 بينك كأنك موضوع إلهي ممكن يجيو وكان صباح مبغضان إن الهيرو دوري ستنشري مركا هو حلا هاي بارك الله فيك ونود عينيا آدي أتمنى ود عينيا وحلا هاي إلهي مالك اللي أنت عطلك عقوسي صي إلهي كمن نتشبيو كمن نتشبيو هلك أتجارسي إلهي صراحة كاسي قادو رزق ونكسن إلهي هكاسيو كيو فرحة إلهي هكادجو درجة أتجاري تكسر رئيسا إلهي هكاسي جارسيو أو الله كوكوليو مركا وحلا يدعو ما تينوغو من يوم وحلا يهاي إلهي هناك نقوله كي وحام مالكا وقليه إلهي وحو نكسب رسول صارو هرمر يدقي أنقلك بدك كسوكرين على الله كدقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجرا سينكل روميسي sidoo kale duwalba oo ku halka idin ka muuqda ma dhow lagu hayno gali doonaan iswiinta qaarkood ay gali doonaan xaraka jarida gudoomiyaha banka ku soo dhaweyn doona Ali Ibrahim Jama Baghdadi ku soo dhaweyn بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا والسلام يا دمان مرت شرفتا ما انت هكا سوتمي راجع دوربا وحاسك على السلام يا gudoomiyaasha labada xisbi qaran waxaan salaamay professorada aqoonyahanada madaxda iyo dhammaan martida oo dhan hadal badan oran maayo anagu waxaan marka horena marlabaad waxaan aad u salaamayaa Mustafa mulkiilaha hotelkan shiiraan baan maxaa jiray halka baan deganaan jiray anagu subaxii markaan soo maray markaan caraabayaba waan u ducayn jiray inuu ilaahay u dhameeyo وانا كفر حسين ماتنا كيجيو شراب كعبو
aagan aynu imika joogno dad badan baa idhahaa hargeysa hudheeladaa ku badan ilaa 1 square kilometer markaan imika trainta halkan fadhiyey ilaa 11 hotel ayaa ku yaala dad baa idhaahdaa way isku bateen anigu ma qabataa hudheelada aynu arkayno on average waa 20 sinirood hudheelkaba marka haddii 100 hudheel magaalada ay ka samaysan yihiin waynu badinaba waa 2000 beds 2,000 sinirood weeye caalamkana hudheel ku dhaca 2,000 sinirood waxaan qabaa inay yar tahay anigu hudheel baa disaya inaan sameeyo marka Mustafa waxaan leeyahay Mustafa insha Allah habeen walba ku buuxsami meel fiican oo ku yaalayo marka dheewo view-ga magaalada leego airport-kii oo dhow hudheelka oo qurux badan insha Allah waxaan filayaa inuu habeenkii walba uu buuxsamo waan u ducaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ayaan kusoo dhaweyn doonaa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لما انت واحد الصلاه يا مرنا وصلاه اسلامك. اهلا ولدتي صالحين ما وصل معايا. وهنقول رئيسنا يا علي خليفه. مدحوين علي خليفه هنقول رئيسنا يا مسؤولين تقرنك يا احزابه يا مسؤولين احزابته قرعه ولماذا hablaha waxaan si gaar ah u salaamayaa Dr. Maxamed Caydi iyo dhakhaatiirta kale ee finanska timiga reerkiisa oo joognayna jooga hadal badan uma baxo waxaan dhahayo inaan hambalyeeyo ninkan dhalinyarada ah ee maalgashiga sameeyey Somaliland maalgashi kastoo la sameeyaa waxa uu ka dhigan yahay shaqaabuhu dalkan ka sameeyo waxa maraya inooga shaqadiya ka hadlayay qaar fariijo u keenay qaar bahala musuula u keenay qaar ka shaqeeyey qaar dhisay kuulii ka shaqeynayey ciddii finishi ka samaysay intaasoo dhan waxay shaqaabuhu waxaan ku hambalyeynaya inuu ku tiiriyey inuu maalgashi ballaaran geliyo hudheelkan xayeysiisiga maaha laakiin wuxuu iigu muuqdaa aniga hudheeladii ugu quruxda badnaa si soo galagidooda waan ku hambalyeynayaa intii boqoraadnimo ku kabayaayo dee wuxuu u baahan yahay tacmiira ay macmir asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي مالله سبحانه وتعالى. إلهي رحمتك نوفر المهضة. إلهي أن بدنا ما أنت عالم كيستعمل كوير إن السيرة مالله سبحانه وتعالى. وإن الشكر بدنا. هذه أدبروا السلام يا دتك السوق أو قابي يو دتك السوق أي بكلام وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسأقول الله شيء مصطفى وحو متيستي أمان يدعو متيست لأنه وحوي وحنا نقول كنا رول مرة كانوا قبل هنا دتك الدبادة تشوي دتك هني الدبادة تشوي وحنا نقول هنا نبوح صوبرتان وإنه نقول إكسبرت وإنه مسكحة وين نقول تكتة إنه أقوانتي دبسوا الشنو أم بقى إنه قليان مع الكلام لكن بدو كودو يوفر مرة بينه يمادان وقاشي إذا هنمشي نوقع جودي ريرة نقولنا ما كان مصطفى مقيلواني بي وحنا ساتونا جودي ريرة نقولنا موسى عبد الله ساقوري لكن وحنا وحبي نوك هناي وما هسيه هاي هوديلك هرمر كيسا iyo amraadis waxay ku xiran tahay dhaqaalaha dalka ilaahay subhanahu wa ta'ala dalka inoo barwaaqayo ayanu ducaynaa nabadana waa adkayo markaas uu hudheelkuna uu sustainable noqon kara haddii aanay mujtamaca hudheelka loo dhisay aanay lahayn awood ay hudheelka wax ka iibsadaan hudheelku uu iska taagnaanaya marka waxay isku xiran dhaqaalaha iyo investment qofka duu invest garaysto
oo laakiin ummadda ku nool ay tahay ogaan aan intiiba $2 hesha oo poverty line-koodu ay tahay 60% ka hooseyso sida maanta oo kale dowladda ayda lagu iska noqonaya sidoo farxaan sheegayna waxa weeye waxa meesha socota dadkii muwaadiniinta ahaa private sector-kii uu koriyaa laakiin public sector-kii baa soconay investment aan qaran iyo nidaam iyo horumar dhaqaale jeegina waa khasaaro waa laga sheekeeyaa inta meheradooda kacday waa laga sheekeeyaa inta guriga laga baxay waa laga sheekeeyaa dhaqaaleyn hoos buu socda waxaan jeclahay insha Allah taala policy in abuurno si dhaqaale loo korin lahaa yani inaga dhaqaale kursigeenu wuxuu ku koobay in wuxuu la cashuuro intii la cashuuri jiray baa la sii cashuuraya laakiin wax mutaqaanay economic growth sameeyna oo ka fikirnaa ma jirto waxaan jeclahay in waddanka dawladda xooga saarto waxay nala joogaa banka dhexe gudoomiyaheedii waa halbowlayaasha dhaqaalaha koritaankiisa iyo fasaadaashooda ka shaqeeya weeye waxaan jeclahay inay dawladdu xilkeeda ka soo baxdo Somaliland maanta crossroads bay taagan tahay doorashooyinkeennii oo ahaa nolosha ayna adduunka waxaan ka iibino way istaagneed baa ku dhacay markaa Bukhari wuxuu yidhi siyaasadda laga hadlo xisbiga kole waa la soo tuurtuuri doonaayo halkii baa la taaban doonaa oo istaago laakiin waa laga hadlayaa madashan oo madala aynka waa kuwa laga faa'iidstaa wey jaamacadu waa halka cilmiga yaalo ee lagu sheego ummadda waxa socda farxaan waxaan ku yeelay marka farxaan aad iyo aad baan waraga aad iyo caawiyo dalka dawooyinka keeno beridootay guddi nabadda dhexdhexaadinta ayaa la igu daray uu ku jiro xasan hadda uu si fiican buu hadli doona in markaan ay ku jirto ma kuma jiro weeyri waan naxay ma kuma jiro guddida dhexaanta maanta waxa dalkeena maanta khatarta haysa wax kala ma waa intii xilka loo dhiibay khatar maanta ku haysa baarlamaankii baa ku haya khatar oo isagu naftiisu u shaqeeyo dalkii ka shaqeynay soo bila shaqeeya guurtidii baa ku haysa khatar oo iyadoo nafteedu ka shaqeynaysa way madaxweynaha baa khatar ku haya oo isna ficil ka shaqeynay way aan kaale muran dal ma lagu wada soo waa check and balance wala noo sameeyay in dawladda xubnaanteeda sheegnay wanaageeda waa loo sameeyay adu xusbiga u tahay accountable ma aha independent iska tahay wax kula xad si ayuu ka soo baxay ma baarlamaanka ee waka baarlamaanka tariiku wuxuu yahay accountable xusbiga iyo dalkii laga soo doortay si wasaqi ya ucud buha ma ayshi la oran jiray maxay iska tagay moogtay madaxtooyadu iska xariiray madaxtooyadu iska xariiray halkii laga soo dooray dib ugu noqo عيلو نبدي هذا حكم مو كمان يا مركا هو يو accountable يعني نحن accountable معها على خليفة والكن عنده نلتشوجا الحمد لله قارب لها وحنا سميه جول ستيج جول ستيج سماه لك سماه ميسيو ستيج كله كل سماه اسمه نمان خالكن عاد سوا ميرسنا ينا المودي يعني سماه تشرشري كرام وحنا وقت هسكلوا منه سماه لو وصلت كليه وهل هلمه ملك على تشرشر يا سومان كانوا وحي في غدا كيران وحي نغا دخ ابور يوسف لو wax suurtagal ma ahay dalku wala way dagaya haddaan ismaaciil hargeysa ka sheegto soo qalad ma aha gobolka Arshaan leh Soomaaliya wala way dagaya dalku wala way dagay uu dalay waynu hagaajisanaynaa laakiin waa in caruur yaro kolba gaal u tigiso leh Soomaaliya saddex gobol laga dhigo Soomaaliya waa hal gobol waa hal state saasana waxaan insha Allah taala marka waxaan jecelahay inaynu madaxweynaha ku guntano in Ilaahay dariiq toosna ku soo haway waa u ducayna maanta khatar kale oo dalkan ka jirta ma jirto madax adeega aniga Ilaahay baa aniga Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay baa aniga subhanahu wa ta'ala wax garanay
waxaan leenahay walaalayaal cali khaliifna in badan wuu dul taagnaa arrintiisa waa dhamaatay waxa u baahan tahay madaxweynaha uu isna la qaato 22 qodob baan ku heshiinay 7 nin baan ku heshiinay oo 5 ay dawladda ku jirtaan filaya 5 yani awil haduu diido 5 qof oo la xuquuqa talada soo jeediyeen isna markaa waa la diiday isna waa la diiday hadda you go bal reerkii oo madaxweynaha matida waxna insha Allah waxaan leenahay in taas oo dhameyn doonta موجودها إنه قصة challenge كم حنا كبحنا من نمو وحنا أنتم كدر يا هلو دعية سلطان محمد حسن غني صلاتين تعالي هذا في عنا إلى هاي يصنع في ماتسيو إلى هاي سنين دو دعية وهو من مركز إنه قصة حري قرنا يا ما قرنا صاي حلكها سلطان مدح يا عمام مدح يا شرفت تراديش ذلك إلى هاي يصنع حملين إلى هاي يمكن وداريو حلكوا إنه الثانية موصول مصرنا وين هو سارية وإن نقف كسبح الكيس كصباح مسؤولية بين جوا سنة ذلك هذو ما أنت ذلك حاسين روح ما ذو الله أرمايو موسى وها الحموسة الحوينة وحرية مسؤولها مسؤولية داس إلهي إنه هجاج سبحانه وتعالى إلهي إنه هجاج دليرت وين السوق سه وين شلون مدرف عنو نقولنا ديال هيدا ما هنا إنه نقولنا تصالحهم وإنه قبيلة وأبونا معها قبيلة ده يستيج كسمة كلام محمد سياد بروحي قبيلة كهني بدل الله يضي بل قد يشوف كلا شيء ما كي بهاو كلا شيء ما شاء الله كذا سؤال نسأل ما شو ملي سكمت تأكتي يعني إن إلهنا إله سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا وضع شقين في عن صور الله المدة لبص سنة يصدق بلادة وأنا ما أنت كله وريجيو هوتيل كاي ديسين حياة هوتيل وحن آدي قوم هالنغير دمان شغاله هذا قدوميه هذا سيد عبد الرحمن يدمان أنت لا شغال يسولنا والله ما تدعي عبد الرحمن الله يبارك فيك الله أدبر وقوم هالنقيا مصطفى وأنا ودي سهو دالكن الله هو بركيه والسلام عليكم ورحمة الله سلام فيصل أوكي سلام كيف قال شرية كيف جواب حيدي والله ها كمال الله رسيل بسم الله الرحمن الرحيم سوق عم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما صدق كان أنا أقول لك أنا بس كيك اللي ما أخوني ما قرنا يا أنا دول حلقة اسمها كتر حلقة اسمها كتر يا فيستا سوى ضغطة يا اوكي تاكله اوكي حقنا كله كله سلو لا علي سلو علي بسر يا علي فرمسة ها بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله هيا عم هيا عم هيا عم هذا القدومية كبحثت أنا كبحثت فير أنا كبحثت هيا عم هاي